kulanti wanaagsan daawadayaal soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena arrimaha siyaasadda ee garqaad miidiya qodobada wararka maanta ah oo taariikhdu tahay 3 bisha January 2020 kusoo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Axmed iyo waliba James Iswaan oo ku kulmay magaalada London xilli ay ka wada hadleen doorashada guud iyo waliba Allah dalka madaxweynaha maamulka Puntland oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu sheegay in xalka Soomaaliya laga xalin karo oo kaliya gudaha dalka Kenya oo sida hadalku dhigay iyo waliba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay hadii uu dhageysan lahaa la taliyihiisa dhanka amniga ee Bolton dagaalka lixaad ee adduunka in uu socon lahaa saacadan iyo waliba fayraska ka soo dilaacay gudaha dalka Shiinaha oo saameyn xooggan ku yeeshay ardayda Soomaalida ee ku nool gudaha dalkaasi iyo waliba fanaanka Cabdinaanto oo ku xiran gudaha magaalada Muqdisho oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan xirnaanshiisa qodobadaas waliba qodobo kale ayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doona intaan wada ku jirno daawadayaal fadlan hadaa tahay saaxiibada nagu cusub subscribe saar si aad halkan ugula socoto wararkii waliba warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waliba caalamka aanu ku bilowno madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna hogaamiyaha xisbiga madasha qaran ee Sheekh Axmed iyo waliba wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa xalay ku kulmay magaalada London labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo kala duwan sida doorashada galmudug doorashada federaalka ee soo socota iyo xalinta khilaafka dowladda federaalka iyo waliba dowlad goboleedyada Sheekh Shariif ayaa sheegay in loo baahan yahay hanaanka doorashada galmudug ay noqoto mid loo dhan yahay oo dhinacyada kala duwan ay heshiis ku yihiin sidoo kale waxaa si gaar ah looga hadlay doorashada 2020 sidii ay waqtigeeda ugu dhici lahayd dhammaanba asambleeyada siyaasadeedna ay ka qayb qaataan wakiilka qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa dhankiisa sheegay in beesha caalamka ay u arkaan sanadkan inuu yahay mid muhiim ah loona baahan yahay qorshaha hortabinta leh sidii looga wada shaqeyn lahaa sida doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda labada mas'uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrinta xiisadda galmudug oo iyadana meel cakiran marayso maadaama ay isbarbar socdaan doorashooyin kala dhacaya iyadoo magaalada Dhuusamareeb shalay lagu doortay garabka Ahlusunna madaxweyne inuu noqdo Sheekh Maxamed Shaakir oo ah madaxa Ahlusunna iyadoo sidoo kale magaalada Gaalkacyo iyadana gogol uga furan tahay madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf kaasoo isagana lagu yaabo inuu ku dhawaaqo inuu yahay madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug halka dhanka kalena ay magaaladaasi Dhuusamareeb ay ka socoto olihii ugu dambeeyay ee xilka madaxweynaha ee doorashada kaasoo isagana baarlamaankii labaad ee galmudug ay u dooran doonaan madaxweynaha cusub ee soo socdo taasoo noqon doonta in galmudug ay yeelan doonto 3 madaxweyne oo isbarbar socdo taasoo iyadana ay noqon doonto mid xiisad iyo waliba gelin doonto jahawareer cusub deegaanada galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ragaadisay khilaaf iyo waliba karaagti duwanaansho u dhaxaysa siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanadaasi Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa Xasan Cali Khayre muddooyinkii ugu dambeysay ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa wuxuu sheegay in gabagabay marayso dhismaha maamulka galmudug isagoo muddo badan ku bixiyay dhismaha maamulkaas balse ay sheekadu gadaal ka xumaatay kadib markii shalay garabka Ahlusunna ay madaxweyne u doorteen Sheekh Shaakir inuu noqdo madaxweynaha maamulkaasi taasi oo ka dhigan in Ahlusunna ay ka baxday gabi ahaanba arrimihii ku aadanaa iyo waliba heshiiskii hore ula gashay dowladda iyo waliba xildhibaanada laga siiyay baarlamaanka cusub ee maamulkaasi galmudug labada mas'uul ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday arrinta ku aadan khilaafka maamul goboleedyada iyo waliba dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ay ugu horeysay maamulka Jubbaland iyo waliba dowladda federaalka taasoo khilaafkooda gaartay heer ilaa hadda waxa loo heenin taasoo sidoo kale keentay in madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Jubbaland Axmed Madow oo markale dib loo doortay dowladda ku dhawaaqday inaysan aqoonsaneyn isla markaasna gabi ahaanba doorashadii ka dhacday deegaanada galmudug ay tahay mid aan la aqoonsaneyn balse Axmed Madow ayaa sheegay inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee maamulkaasi isla markaasna uu ahaan doono muddada 4 sano soo socod taasoo iyadana kala geystay xiriirka labada dhinac meel xunna ka sii riday taasi ayaana kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee labada dhinac isla soo hadal qaadeen waxaa sidoo kale isla soo hadal qaaday in fursad la siiyo musharaxiinta u taagan una istaagi doona xilka madaxweynaha ee guud ee doorashada taasi oo dhici doonta 2021 iyadoo Sheekh Shariif uu u sheegay James Iswaan in loo baahan yahay furfurnaan dhanka siyaasadda iyo waliba amniga isagoo sheegay in aysan aqbali doonin in siyaasiyiinta mucaaradka laga hor istaago ka qaybgalka doorashada guud iyo waliba sidoo kale in caburin lagu sameeyo dhanka kalena madaxweynaha maamulka Puntland
mudane saciid cabdulaahi deni oo ka hadlayay munaasabad soo dhaweynayd oo xalay loogu sameynayay magaalada nairobi isagii wafdi hogaaminaya ayaa sheegay in dadka xagjirka ay caqabad ku yihiin nabadda deeganaanshiyaha iyo weliba wada noolashaha dadka ku nool geeska afrika. madaxweyne deni ayaana ku baaqay in meel looga soo wada jeesto gaar ahaan al-shabaab isagoona xusay haddii si qoto dheer loo fiiriyo xal waara laga gaari karo, waxaana uu tilmaamay in aada looga gaabiyey arrintaasi. la dagaalanka fikirka xagjirka iyo weliba nabadgelyadooda ma aha daawadooda in lala dagaalamo militari ahaan, waa in si kobac dhaqaale lagula diro oo dadka inta la qaldayo laga gooyo, ayuu yiri deni. sidoo kale waxa uu soo jeediyey in laisku xidho masaaliixda dadka ku nool geeska afrika islamarkaasna wax laga bedelo is-socodka xuduudaha dadka iyo weliba danaha isdhexgalaan si nabad loo ilaaliyo. munaasabadii qaadada ee loogu sameeyey magaalada nairobi madaxweynaha puntland iyo weliba wafdigiisa ayaa waxaa ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid share maarke, cabdiweli cali gaas, madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo weliba xildhibaanada soomaalida ee ku nool gudaha dalkaasi kenya. isagoo sidoo kale deni sheegay in xalka soomaaliya ay ku jirto ogoliyo gudaha kenya islamarkaasna laga xalin karo buu yiri gudaha dalkaasi kenya, taasi oo ula jeeda in siyaasiyiinta ku nool gudahaasi kenya ay wax badan ka ogyihiin arrinta soomaaliya islamarkaasna xalka waara uu ka imaan karo buu yiri gudaha dalkaasi kenya. waa sida hadalka uu isaga u dhigay. dhanka kalena aqalka cad ayaa isku dayaya in uu iska hor istaago daabacaada buug uu qoray la taliyihii hore ee arrimaha amniga Donald Trump oo lagu magacaabo John Bolton. waxay ku doodayaan in walaaca dhanka amniga ah ay ka qabaan golaha amniga qaran ayaa sheegayaan in buugga ay ku qoran tahay sir heer sare ah oo faahfaahsan, waxayna dalbanayaan in macluumaadkaasi laga saaro, balse Bolton ayaa beeniyey arrintaasi. qayb ka mid ah buugga waxaa laga sheegay in ay ka hadleyso xiriirkii ka dhexeeyay madaxweyne Trump iyo weliba hakintii deeqaha militariga ee loogu talagalay Ukraine, iyadoo Trump uu ka dalbanayo dana siyaasadeed oo isaga muhiim ah in ay Ukraine u sameyso. dooda buuggan ka dhalatay waxay imaaneysaa iyadoo ay bilaabanayso dhageysiga soo jeedinta xilka qaadista madaxweyne Trump. jimcaha beri senatarada Mareykanka ayaa qabanaya codeyn muhiim ah oo la xiriirta in maqraatiyada kiiska Trump la wareysan karo iyo in kale. dimuqraadiyiintan waxay dalbanayaan in Mr Bolton uu ka hor markhaati furo aqalka sanadka. sidoo kalena xubin ka tirsan jamhuuriga waxay soo jeediyeen inay wanaagsan tahay in la maqlo lana dhageysto la taliyihii hore ee amniga u qaabilsanaa dhanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. madaxweynahan wuxuu beeniyey dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey. agaasimaha golaha amniga qaranka ee Mareykanka Ilan Kenneth waxay war qoraal ah oo loo diray Bolton ku sheegtay in la maro hanaanka dib u eegista hordhaca iyo buugga ay ku qoran yihiin muhiim macluumaad u muuqdo kuwa sir weyn ah. sida la sheegay waxyaabaha buugga ku qoran waxaa ka mid ah in madaxweyne Trump uu si toos ah ugu sheegay Bolton inuu hakiyo kaalmada militariga ee Ukraine si cadaadis loogu saaro in ay caawiyaan in doorashada 2020 uu ku guuleysto. xubno sare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa hadda difaacaya Bolton inuu hortago aqalka sanadka uuna halkaasi ka cadeeyay wixii dhacay xilligii uu ahaa la taliyay madaxweyne Trump. laakiin kuwa kale oo badan waxay sheegeen in loo codeeyo tirada markhaatiyaasha ee hortagaya aqalka. nuqul ka mid ah buugga ayaa la sheegay in loo diray aqalka cad si dib u eegis loogu sameeyo. Trump ayaa Twitterkiisa ku weeraray la taliyay arrimaha amniga John Bolton, wuxuuna buugga ku tilmaamay qashin iyo been, wuxuuna tilmaamay in weligii uusan Bolton kala hadlin xiriirka kala dhexeeya kaalmada militariga iyo weliba arrimaha gudaha ee Mareykanka. wuxuu sidoo kale Twitterka ku qoray haddii aan dhageysan lahaa waxaa haatan ku jiri lahayn dagaalka lixaad ee dunida. Trump ayaa waxa uu ku jiraa ololihiisii ugu dambeeyey ee isku difaacidda dhageysiga xilka qaadista loogu sameynayo, taasi oo dhici doonto dhowaan. Trump ayaana inta badan waxa uu kaga falceliyaa siyaasiyiinta weerarka kusoo qaado dhanka Twitterka isagoona aada u isticmaalo, waxaana sanadihii lasoo dhaafay uu noqday sida la sheegay madaxweynaha ugu isticmaalka badan Twitterka dunida oo dhan. dhanka kalena safiirka safaaradda Soomaaliya dalka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kulane oo ka warbixiyay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ku nool dalka Shiinaha si gaar ah gobolka Wuhan oo ka dilaacay caabuqa corona, dad badanna dalka Shiinaha ugu dhinteen qaar kalena la ildaran yihiin. safiir Cawaale oo Kulane ayaana sheegay in gobolka Wuhan ay ku nool yihiin ku dhawaad 40 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo u badan arday waxbarata 5 jaamacadood oo gobolkaas ku kala yaala, kuwaas oo kala ah sida uu sheegay
Wuhan University, Shanghai University Science and Technology, Wuhan University Science and Engineering, China University of Geoscience and Central China Normal University. danjir cawaale kulan ayaana intaa ku daray in dhammaanba muwaadiniintaas ilaa iyo hadda ay caafimaad qabaan ayna tilmaamo caafimaad ka helaan hay'adaha caafimaadka ee fayraskan coronavirus la tacaalaya. sidoo kalena xiriir la soo sameeyey safaaradooda oo xilli walba diyaar u ah in ay caawiso. safiir cawaale ayaana ugu baaqay muwaadiniintaas inay qaataan talooyinka caafimaad ay bixinayaan hay'adaha si cudurkaasi uusan ugu faafin loona xakameeyo. ugu dambeynna fanaanka cabdi naanto oo muddo 3 maalmood ku xiran gudaha magaalada muqdisho ayaa warar kala duwan ka soo baxayaan xarigiisa. fanaankan oo bartiisa Facebook ku weeraray shakhsiyaad uu ku tilmaamay inay yihiin ururka al-shabaab ayaa ka dambeysay in ilaamaha amniga soo qabtaan isla markaasna su'aalo lagu weydiiyay arrintaasi, waxaana kadib loo dhaadhiciyay xabsiga isagoo muddo hadda 3 maalmood ku xiran gudaha xabsiga. waxa uuna weerar ku kala qaaday siyaasiyiin iyo weliba sidoo kale madax ka tirsan maxkamadda guud ee gobolka Banaadir, taasi oo keentay in fanaankan la soo xiro isla markaasna muddo hadda ilaa 3 maalin uu ku xiran yahay xabsi ku yaal gudaha magaalada Muqdisho. fanaankan ayaa waxa uu xubin ka mid ah ururka al-shabaab ku raajoogaan uu ku tilmaamay nin lagu magacaabo Xasan Maali, kaasi oo la sheegay inuu ka tirsan yahay hay'adda garsoorka iyo weliba sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir. waxa uuna fanaanka lagu wadaa in maalinta Sabtida la soo taago maxkamadda gobolka Banaadir, taasi oo qaadi doonta dhageysiga fanaanka. waxa uuna fanaankan muddooyinkii ugu dambeysayba aad u weerarayay siyaasiyiinta iyo weliba sidoo kale madaxda ka tirsan dowladda, kuwaas oo ay ka mid tahay wasiir Khadiija oo uu isaga iyo iyada mar ay isdagaaleen uu dhanka barta Facebook uu ka weeraray. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qaybtii koowaad. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.